warshadii basharka haddii warshad taangiya la haystiyo kombiyuutaradu bini aadam ma noqdaan dayuuraduna bini aadam ma noqdaan waxaa loo baahan yahay bini aadam in la keeno bini aadamna qaabka qura uu ku yimaada waa qaabka kale shaqada labaad ee laga rabaa waxa weeyaan inay koriso waa hawl adag in la dhalaase waa hawl fudud marka labadaa la si dhinac dhigo dhalista iyo korinta adag dhalistu adiga juhdi kaama rabto ee ilaahay baa qofkan meesha ku abuuray oo wuxuu cunayay meesha ugu geeya oo laakiin inaad korisaa caqli iyo tala iyo mutaabaca iyo xoog bay kaa rabtaa aday kaa rabtaa dunida maanta la joogo waxay ka cabanayaan waxa la yidhaha child delinquency waa junuux اlatfaal waa carruurta dembiilayaasha ah qaanuunka reer galbeedku wuxuu sheegaya qofku 18 jir markuu gaadho ayaa xabsi la geyn karaa la xidhi karaa waa caynkan 15 jiro 16 jiro 17 jiro dunidii waalay see loo gelaya waa kuwa nimanka ogolaaday juvenile prisoners xabsiyada muraahaqiinta 16 hadduu gaadhaha la xidhay bay leeyihin laakiin xabsi gaar aan xabsiga weyn hayn ee u gaaraha lagu xidho carruurtii way sii xumaanaysaa waxay leeyihin problemku waa maxay mushkiladda koowaad waxay leeyihiin carruurtani imaa inay ku soo kortay meel dadka lagu koriyo مثلا haddii la idhaha dumarku ha dhalaan laakiin markay dhasho baan haagaha geyso ama kindergarten meelahan carruurta lagu hayo dhulka iyagaa shaqo tagto waxay leeyihin kuwii meelaha lagu soo koriyey baa ugu badan dunuubtan dadka geystay kuwii ku soo koray baa ugu badan bay leeyihin guri aan labada waalid joogin taa macnaheedu waxa weeyaan haddii la rabo bulsho hagaagsan in la soo saaro ilmuhu laba waalidoo koriya waa inuu helaa labada waalid inaad 40 carruura lagu yidhaahdo hay oo subaxii intaad shaqo tagto 40 ciyaala soo dumar uun maaha waxaynu carruurta la rabno gabadh shaqaalada aan qorno 40 ciyaal aan u dhiibno inta laga soo rawaxaya ha hayso taasi ma bedeli kartaa la leeyahay hooyada ilmuhu wuxuu ka barto kama barto qofka dumar ee 40 ka haysa aan dhalinde 40 aanay dhalin shaqaale ku mushahar ku qaadata kama soo baxo naxariistu hooyadii ka hela kama helo koristu hooyadii ka hela kama helo danaynta uu hooyadii ka hela ay danaynaysa kama helo ma noqdo bay leeyahay psychologically qofkii la rabay idan waxaan leenahay hawsha labaad ee bulshada muslimka ah la rabo inay qabato gabadha muslimadii waxa weeyaan inay si gaara u koriso ilmaheeda ilma kale ku darkan iyo waxaasi waa tillig waa waxyaabo dheeraad oo kale laakiin asalku waa inuu ilmuhu ku koro guriga aabihii iyo hooyadii asalku waa inuu laba waalid koriyaan asalku waa in la tarbiyeeyo la rabeeyo gurigoodu ilmuhu ku bartaa cadaaladda iyo tala wadaagga iyo akhlaaqda fiican iyo naxariista waa haddii ay waalidku yihiin waalid soo jeeda ilmaha yar waxaa lagu rabeeyaa maxay soomaalidu inta badan inuu wax cunaa unbaa muhiimadda ah waxa kale wax weyn ma moodaan ilmuhu agtaada ayuu ku gaajooninu hooyadu inta badan taasi ka fakartaa aabbuhuna wuxuu u soo shaqaynayaa un ilmahaasi yuu gaajoonin haddii hooyada ama aabbaha la yidhaha ilmaha wuu gaajooday waa naxayaan waa warwarayaan laakiin waxaa ka muhiimsan diinta iyo dhaqanka uu qaadanayo qaabka uu ummadda hadhow ula dhaqmayo haddaad cadaalad rabto gurigu ku baran karaa innagu cadaaladeenna waxa weeyaan oday soomaaliyeed baa la yidhaha carruurtaada ayaad u jecesho kii buka kii maqan buu yidhi kolba ka maqan baan ugu naxdin badnay kolba ka xanuunsanaya baan ugu jilicsanay kolba kii yar buu yidhi anigu saan u kala jeclay waa saddexdan un buu leeyahay kaw yar baan marba u jeclahay marba ka maqan un baan ugu warwar badnay marba ka xanuunsanaya laakiin sida rasmigii waxa weeyaan
in loo cadaalad sameeyo ilmaha ka weyn iyo ka yar iyo ku dhaxaba in naxariista la baro in waxa tarbiyada loo yaqaano dhan ilmuhu gurigu ka qaataa waxaan markaa shayga labaad ee gabadha muslimadda laga rabaa bacda cibaadati illaahi subxaanahu wa tacaala waa inay jiil cusub ama dhiig cusub ummadda ku soo kordhiso si ummadda isu beddesho oo horumar uu gaadhi karo waa in jiil cusub isoo koraa maanta thaqaafada galbeedka ka socota labadan shay aan sheegayba waa cagsigeeda dadka diin iyo caqiide cidina kuma tarbiyayso way sii lumayaan dhasha dambe iyo siday tahayna waxaa la isku dayay inay dawladdu dadka yeelato oo ilmaha ka fakarto oo cid walba ka fakarto laakiin dawladdii waalid noqon weyde carruurna dhali kari weyde dawladaha sistamada ka dejisani waa sistamo aada ugu eexaynaya carruurta iyo korintooda iyo waxa kan laakiin bedeli kari waaye gurigii hooyo aabba noqon waaye iyadoo ay lacag badan ku bixinayaan oo wax badan eegayaan waa hooyo aabba noqon kari waaye walidaalika ayuha alikhwa bii'a mulawatha baa ku jirtaan yacni la sumeeyey oo tv-gu iyo jariidaddu iyo siyaasigu iyo wax waliba waxay sheegayaan gabadhan madbaxa ha laga soo saaro gabadhan afarta derbi ku xidheen ha ka soo baxdo gabadhan xuquuqdeedii baa ka maqanay ha raadsato gabadhu xaqa ay doonayso markii la tajribeeyey waxay isweydiiyeen gabadhu xaqeedii ma heshay mise may helin iminka guruubbaa jira yurub dib u doodaya oo haweena oo ku doodaya gabadhu gurigii ha ku noqoto ninkana ha la siiya bay leeyihin double wage ama family wage waxay ku tilmaamaan mushaharka ninkana ha loo kordhiyo reerkaa ku filanka intii la odhan lahaa labaduba ha shaqo tagaan midna carruurta ha haya midna ha shaqo tago laakiin kan shaqaynaya wax reer ku filan ha la siiya bay leeyihin maxay sidaa u leeyihiin waxay leeyihiin gabadhii baa la dulmiyey oo see loo dulmiyey sababtan wasiiradda noqotay madaxweynaha noqotay ee baankaradda noqotay ee khabiiradda ee brofesaradda ee xaggan joogta waxay idhahdeen gabadha dulmi baa ku dhacay oo laba goor midunbay dulmantay bay idhahdeen imaa inay hooyanimadii iyo xanaankii waalidnimoba weydo waxbaba may guursan ama waxbaba may dhalin madhalays baa laga dhigay intii ay ragga la baratamaysay wakhtigiiba dhaaftay guurkaba waxay eegayso ay lahayd haddaan carruuriya waxaan dhalo dee waan hadhaya xisbiga meel hoosaan ku dhacaya si aan xisbiga u hogaamin karo dowladda u hogaamin karo waa inaanay guri iyo carruuriya waxaan ku mashquulin dee waa inay xagga hore tagtay madaxweyne noqotay siyaasiyad noqotay waxaan noqotay laakiin waxay leeyihiin laba dulmi bay qabtaa imaa bay idhaahdaan inay hooyanimadii iyo waalidnimadii iyo carruurtii waa fitra ilaahay ku abuuray ay weydo gobla noqotay ama bay yidhaahdeen inay laba shaqo qabato dumarka galbeedka joogaa bay dhahaan inta wax dhalay laba shaqay qabtaan bay dhahaan sida ninkay 8 saacadood shaqo tagaan hadhow guriga marka la soo noqdana 8 kalun bay shaqaysaa bay dhahaan ninkuna uu seexdaa idan gabadha tan laba shaqoon baa la geliyay baa la leeyahay waxba looma kordhin 8 saacadood oo ay xafiiskii ama wasiirad ahayd ama caynkan ahayd ama baan ka shaqaynaysay ama waxaan ka shaqaynaysay yurub dee halkan dad masaakiinaaba joogo lagu shaqaystay cid lagu shaqaystaana ma jirto dee qof waliba gurigiisa markuu soo raaco isagaa dheriga bilaaba cid kaasii horraysaa ma jirto ama wasiir noqo ama baankar ahaw ama joog nin waliba isagaa dherigiisa bilaaba marka la soo noqdana bay leeyihin haddii midh ama laba la dhalay gabadha kuwan xafaayadaha ka bedel kori raashinka kari shaqadii gurigana iyada qabataa marka maxaa loo kordhiyey bay leeyihin laba shaqaa loo diray gabadhuna 16 saacadood bay shaqaysaa bay markaa leeyihiin 8 guriga iyo 8 dabadda ninkuna 8 saacadood buu shaqeeyaa keeba xaq la siiyey keeba se la dulmiyey ninkunba guriga kharashkiisii laga yareeyey bay leeyihiin sida tan ninkaa ku faa'iiday baa la leeyahay gabadhu kubay faa'iiday labaduba markay shaqo tageen dabeetana ay guursatay ninkaa wax kororhsaday oo ah xaggana gabadhnimadii iyo carruurtiibuu ku haystaa xaggana lacagtiina labadooduba way soo wada shaqaynayaan marka ninkaa wax kororhsaday bay leeyihin weli gabadhaa dulman saa daraaddeed gruubkan dumarkii waxay ku doodayaan gabadhu waxaa dulmiga ay ka bixi karaysaa oo qole markay gurigeeda joogto
ninkuna wixii dabadeed soo qabanaya iyaduna wixii gudeed ay qabanayso markaasoo quray dulmiga ka baxday bay leeyihin ama dabadana ka wada shaqeeya gudahana keligaba ka shaqaynaya xataa ninku hadduu yidhaha waan kala shaqaynaya ma shaqayn garanayo ama ma qabanayo wixii loo baahnaa mar kastaba ilaahay tan gabadha tan ayuu takhasus u siiyey inay ilmo korin karto wadi karto hagaajin karto oo u nixi karto hooyadu yani fitrada ay ku kala gedisay waxay dhahaa maskaxda hooyadu multi services bay u samaysantay kombiyuutarada waa tan waxaa lagu kala wanaajiyaa waa inta shaqee uu isku mar qaban karo kombiyuutarka hooyadu bay yidhaahdaan guriga markay joogto iyadoo dheriga walaaqaysa ayaa midna dacalka haysta midna ay la hadlaysaa saddexda shaqaba way wada qaban kartaa bay yidhaahdaan ninku bay yidhaahdaan laakiin tarkiizum weeyaan wax qurun buu qabtaa bay leeyihin caqligiisu isugu tagaa saddex shaqo mar wada qabta bay yidhahdeen ninka maskaxdiisu marka hadduu dheriga walaaqa bay yidhaahdeen oo ku yara dacalka qabsado uu iska fujinaya war orodoo xaggaa fadhiiso dhaaf buu leeyahy dherigiisu walaaqanayaa bay leeyihin laba shaqo ma wada qaban kara baa la dhaha waa fitradu ku abuuran yihiin waayo waxaa loogu talagalay nolosha dabadeed inuu wax tarkiisiyo oo waxaa qabto hooyadaas se wada qaban karta bay leeyihiin saddex carruura in midna dacalka haysto midna ay saxaro ka beenayso midna ay cunno siinayso saddexdabana ay u dul qaadan karto aabbuhu suurtagal maaha bay leeyihin hadduu mid shaqo ka qabanaya labada kale waa inuu eriyaa